بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa rabbi hadduu qadaro barnaamijkeennii qisaska ahaa. waxaan barnaamijkanagi ku bilaabi doonaa qisadii dheereed. qisadan waxay dhex martay xajaaj bin yuusuf athaqafi oo aad garanaysaan amiir ka ahaa dhulka ciraaq dowladdii amawiyiinta xilligeeda, iyo wiil yar oo ka dhashay bani haashim. xajaaj waxaa abtiyaal u ahaa reer bani umaya oo mucaawiya uu ka dhashay. wiilkan yarna wuxuu isir ahaan ka soo jeeday reer bani haashim oo cali bin abi aalib uu ka dhashay, dagaalna uu ka dhexeeyey labada qolo. qisadu waxa ay ku bilaabanaysaa xajaaj bin yuusuf athaqafi. xajaaj bin yuusuf athaqafi ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu aaday inuu soo ugaarsado. waxaa u baxay ugaarsi. xajaaj bin yuusuf athaqafi waxaan nidhi waxa uu baxay ugaarsi si uu u soo ugaarsado ugaar. ninkii xajaaj ahaa markii uu bannaankii magaaladii ka tegey buu wuxuu arkay wiil yar oo gacanta ku haya 9 ey xarga ay ku xihan yihiin. 9 ey xarga ay ku xihan yihiin ayuu gacanta ku hayay wiilkii yaraa. xajaaj wuxuu soo dul istaagay wiilkii yaraa 10 jirka ahaa eeyaha xargahooda gacanta ku hayay wuu soo dul istaagay. su'aal buu weydiiyey, wuxuu ku yidhi, wiil yahow maxaad samaynaysaa? wiilkii yaraa intuu kor u eegay buu wuxuu yidhi, waxaad ii sidaa war aanan ku farxin. waxaad igu eegtay indha dadka lagu liido. waxaad igula hadashay hadal isla weyni ku jirto. hadalkaagu ruux isla weyn ayuu u eg yahay, caqligaagana caqli dameer ayuu u eg yahay. xajaaj wuxuu yidhi, ima garanaysid miya? wiilkii yaraa wuxuu yidhi, wejigaaga madowgiisa ayaan kugu gartay markaad hadal igu bilowday adigoon i salaamin. xajaaj wuxuu yidhi, war hooge, soo ma ogid inaan xajaaj ahay? wiilkii yaraa wuxuu yidhi, ilaahay gurigaaga ma soo dhoweeyo, martidaadana ilaahay kuuma sooro hadal badnidaa oo karaamo darmidaa. xajaaj hadalkii intuusan dhammayn, wiilkii yaraa uu kortaagnaa isagoo dultaaganoo hadalkiina uu dhex socdo unbaa askartii waardiyeynaysa xajaaj bin yuusuf athaqafi soo kala carartay. waxay yidhaahdeen, taliye, hadal waan ku maqlaynaaye, na amar waan samaynaynaaye. xajaaj wuxuu yidhi, wiilkan yar ii qaada. hadalkiisii aad buu ii xanuunjiyey. ii kaxeeya qasrigayga meel ka mida iigu xidha. wiilkii yaraa bay kaxeeyeen, qasrigii bay meel ka mida ku xidheen. xajaaj wuxuu iska soo dhammaystay ugaarsigii. waxa uu ku soo laabtay qasrigiisii. markii uu kursigii fadhiistay buu wuxuu ku yidhi, ii soo saara wiilkii yaraa. wiilkii baa waxaa la keenay qasrigii xajaaj uu ka talinayey ee ay fadhiyeen wasiirradii iyo ciidamadii kuwii ugu sarsareeyey. wiilkii yaraa markuu meeshii soo istaagay wuxuu yidhi, assalaamu calaykum. salaantii wax ka celiya ayuu waayey oo ka radiya. markaasuu dhinacyaha intuu eegay buu wuxuu ku jawaabay hadalladan soo socda: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. 3 aayadood buu ku dul akhriyey. wuxuu yidhi, meel walba waxaad ka dhisaysaan calaamad oo guriga xajaaj uu deggan yahay quruxdiisii iyo sida uu muraayadaha u yahay ayuu la yaabay. markaasuu wuxuu yidhi, watattakhiduuna masaanica, warshada ayaad dhisanaysaan lacallakum takhluduun, sida inaad adduunka ku waaraysaan. wa idaa badashtum, haddaad ruux qabataan aad rabtaan inaad xukuntaanna, badashtum jabbaariin, dad madax adag oo xadgudbay idinkoo ah ayaad dadku qabanaysaan. xajaaj sidaa ayuu kursi ugu jiifa gadaalgadaal wuu soo fadhiistay. dadkii meesha joogay ilmo dhowrahoo ka mid ah ayaa wiilkii yaraa waxay ku yidhaahdeen, wax adaba ma lihid. amiirka markaad u soo gelaysay salaan u qalanta ma aadan salaamin.
soo ma ogid inaad amiirka ciraaq gurigiisa ku jirto maad si fiican u salaantid wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaad tihiin digada dameerka in aan salaanta noocaasi ku salaamo xajaaj waxaa ii diiday waan daalay buu yidhi waddo dheer bay isoo mariyeen jaranjarooyin dheerna way isoo saareen markaan gurigan qasrigan soo gelayay salaanta aad doonaysaan quruxda badan inaan ku salaamo xajaajna waxaan ku salaamayaa amiiruulmu'miniin iyo asxaabtiisa ayaan ku salaamayaa oo wuxuu ula jeedaa cali bin abi aalib iyo asxaabtiisii ayuu ula jeeday xajaaj wuxuu yidhi wiilkii buu su'aal weydiiyey wuxuu yidhi maanta waxaa timid buu yidhi wiil yahow ajashaadii geeridaadii baa soo dhowaatay rajadii noloshii adduunyada aad ku lahayd inaad sii noolaato wiil da'yar baad tahayna way baaba'day wiilkii yaraa wuxuu yidhi xajaajow ajashayda hadday gacantaada ku jirto hadalkaaga ima dhibayo wax yar iyo wax badan waxaad igu tidhaahdaba ma dhibsanayo wiilashii meesha fadhiya qaarkood baa waxay yidhaahdeen jahligaaga iyo edabdaradaada waxay ka gaartay khabiidkiyo wuxunka ah amiiruulmu'miniin inaad sidaa ula hadasho sida carruurta facaaga aad ula hadlaysa miya adab marihid bay dhaheen fiiri qofka aad la hadlayso si adab iyo usluubna ugu jawaab ixtiraamna u samee waa amiirkii ciraaq iyo shaam wiilkii yaraa wuxuu yidhi ma maqal miyaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii ma aydan maqal miyaa soo ilaahay ma dhihin يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون naf walba iyada isu doodaysa soo lama dhihin anigaa isu doodaya dhaafa xajaaj baa marka wiilkii hadal ku bilaabay oo wuxuu ku yidhi hadalkii hadda aad lahayd yaad ula jeedday salaantii gaarka ahayd oo hebel baan salaamayaa yaad ula jeedday wuxuu ku yidhi waxaan ula jeeday amiiruulmu'miniin baan ula jeedoo cali bin abi aalib baan ka waday cali bin abi aalib iyo asxaabtiisii baan ka waday adigana wuxuu yidhi xajaajow haddii lagu dhihi lahaa salaanta noocaasi qof salaam yaad salaami lahayd xajaaj bin yuusuf athaqafi wuxuu yidhi cabdilmelik ibni marwaan baan salaami lahaa oo cabdilmelik markuwaasi waa reer bani umaya waana boqorka markaa talinayo xajaaj uu ka amar qaato wiilkii yaraa wuxuu yidhi ma cabdilmeliga faajirka ah lacnadda allah ha ku dhacdee tii malaa'igta iyo tii dadkaba ha ku dhacdee makaas ayaad salaamaysaa xajaaj wuxuu ku yidhi maxaad u tidhi cabdilmelik faajir maxaad u tidhi wuxuu yidhi khalad yar uu galay baa muslimiin badan dartiisa loo baabi'iyey dadkii meesha fadhiyey wasiirradii iyo dadkii xajaaj la joogay xilka meesha qayb ka hayay qaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen xajaajow wiilkan dil maxaa dhacay daacadii amiirkii in la adeeco la rabay wuu ka baxay jamaacadii in lagu dhex jiro la rabayna wuu ka dhex baxay oo dadkii isku duubnaa bannaanka ayuu ka taagan yahay cabdilmelik ibni marwaanna wuu aflagaadeeyey marka in la dila ayaan ku xukunnay wiilkii yaraa wuxuu yidhi xajaajow dadkan kula fadhiya edab u yaal waa dad jaahiliinah waxa aan ahay ma fahmayaan xajaaj baa dadkii wuxuu ku yidhi aamusa ani isaga isu keendaaya xajaaj baa wiilkii wuxuu weyddiiyey wuxuu ku yidhi ma garanaysaa walaalkay xajaaj waxaa walaal la ahaa nin sidiisoo kale u dhib badan oo yaman mas'uul ka ah marka wuxuu yidhi ma garanaysaa walaalkay wiilkii yaraa wuxuu yidhi haa walaalkaa waa fircoon markuu nebi muuse u yimid iyo haaruunoo wada socdo si carshigii uu ugu fadhiyey isagas ay uga qaadaan dadkii la fadhiyey buu la tashaday adigana fircoon baa walaal kula ahoo kuwan kula fadhiya ayaad la tashanaysaa xajaaj wuxuu yidhi qoorta ka gooya marba haddii fircoon la sheegayba wuxuu yidhi qoorta ka gooya ruqaashi nin la yidhaahdo waa xajaaj ka agdhow wasiirrada ugu dhowdhow ah baa intuu xoogaa wiilka yaraa u naxay buu is yidhi wiilkan yar haddii qoorta laga gooyo da'dan yar waa ilmo yare bal badbaadi markaasuu wuxuu yidhi amiiruulmu'miniin oo xajaajow ilaahay ha kuu gargaaree inaadan wiilka dilin isku day aniga isii buu yidhi anigaa barbaarinayoo tarbiyaynayee isii xajaaj wuxuu yidhi kaxayso ilaahayna kuuma barakeeyo wiilkii yaraa baa sida addoon camal loogu gorgortamayaa kaxayso ilaahayna kuuma barakeeyo wiilkii yaraa wuxuu yidhi uma mahad celinayey buu yidhi kii i bixiyey iyo kii la i siiyey midna uma mahad celinayo xajaajoo wax i siiyo qaado dad yidhi iyo kii i qaadanaya labaduba mahad iguma laha ruqaashigii wiilkii yaraa u turayo inuu kaxaysta rabay baa wuxuu yidhi waryaa sideed u hadlaysaa inaan geeri kaa badbaadiye ayaan doonayey adigana hadalkan miyaad igula hadlaysaa intuu yidhi buu xajaaj eegay buu yidhi amiirow ma doonay inaan kaxaystee waxaa doonta ku samee xajaaj marka wuxuu yidhi wiil yahow dhegayso waddankeed ka timid wiilkii yaraa wuxuu yidhi masar baan ka imid xajaaj wuxuu yidhi magaaladii faasiqiintii baad ka timid miyaa dhul faasiqiin baad ka timid
wiilkii wuxuu yidhi maxaad ugu magacowda magaalada faasiqiinta xajaaj wuxuu yidhi biyaheedana waxaa lagu cabaa weelal dahaba dumarkeeduna magaalada aad ka timid waa dumar heesaha ciyaaro oo meelaha ku boodboodo naylka webiga nayl ee dhexmarana waa webi cajiib ahoo dadku ay la yaabaan ehelka deggan masarna cajab ma aha carabna ma aha wiilkii yaraa wuxuu yidhi haddaba anigu magaaladaa kama iman la soco xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi ahlu khuraasaan baan ahay dhulkii muslim iyo bukhaari ay ka soo baxeenoo iiraan iyo afghanistaan dhulkaa ayuu sheegtay xajaaj wuxuu yidhi min sharri makaan meel lala yaabo shar badan baad ka timid diinkuna ku yar yahay wiilku wuxuu yidhi maxaad sidaa u tidhi xajaaj wuxuu yidhi waa dad cajam ah oo aan carab ahayn oo cajam ah weeye waa sidii xoolaha ariga iyo lo'da iyo geeloo kale weeye hadalkooda wuu culusyaho lama karo midkooda qaniga oo hantida lehna waa bakhayl wiilku wuxuu yidhi haddaba anigu magaaladaa kama iman xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi dhulka shaam ayaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid dhul fiican le'anna dhulkaa isaga uu dhul fiican ku tilmaamay waa dhulkii mucaawiya looga gargaaro markuu cal la dagaalamayey wuxuu yidhi waxaad ka timid dhul fiican laakiin meelaan ka nabcahay aniga ma jirto waa meel dadka ka yimaada jidhkoodu uu adag yahay wiilkii wuxuu yidhi haddaba anigu meesha kama iman xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi yaman baan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid magaalo dadkeeda aysan kasaynin haddii ixsaan loo sameeyo waa mahadsan tahay waa walaalkiisa ayaa ka taliya wiilkii yaraa wuxuu yidhi maxaa sidaa u tidhi xajaaj wuxuu yidhi codkoodii wuxuu yidhi wuu mac yahay hadalkooduna wuu jilicsan yahay midkooda caqliga badanna wuxuu isticmaalaa miyuusiga iyo heesaha kan jaahilkana khamriga ayuu cabbaa wiilkii yaraa wuxuu yidhi anigaa ka mid ma ahi haddaba kuwaa xagga kama dhalan xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilku wuxuu yidhi reer maka ayaan ahay xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid kuwa shar badan oo jaahiliin ah caqligoodu yar yahay dhul ay ku nool yihiin baad ka timid wiilkii yaraa wuxuu yidhi maxaad sidaa u tidhi xajaaj wuxuu yidhi waa qolo ilaahay uu nebi wanaagsan ka soo dhex saaray nebigii bay beeniyeen wayna eryeen qolo ayaa ilaahay ku badbaadiyey oo ilaahay uu ku soo dhoweeyey nebiga isaga ah jeclaaday karaameeyey wiilkii yaraa wuxuu yidhi haddaba anigu meesha kama iman xajaaj wuxuu yidhi jawaabahaagu waa igu bateen qalbigayga wuxuu ii sheegayaa inaan ku dilo wiil yahow inaan ku dilo wiilkii yaraa wuxuu yidhi geeridayda hadday gacantaada ku jirto adigaa ma ku caabudi lahaa ee xajaaja waxaad ogaataa aniga inaan ka imid magaaladii rasuulka inaan ka imid ogsoonow madiinatulmunawara inaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi magaalo wanaagsan baad ka timid dadka deggan waa ahlu iimaan waa dad wanaagga jecel ee qabiilkeed ka dhalatay qabiilka aad ka dhalatay ii sheeg xajaaj wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaan ka dhashay reer la yidhaahdo bani khaalid ayaan ka dhashay oo isir ahaanna uu ka dhashay cali bin abi taalib nasab walboo adduunkan ku abtirsada qolana wuu baabba'aa nasabkanagii mooye haddaan annaga nahay reerka nebiga ma baabba'ayno ilaa maalinka qiyaamo waan jiraynaa xajaaj intuu carooday aad u carooday buu yidhi wiilkan madaxa ka gooya dadkii meesha fadhiyey baa waxay yidhaahdeen xajaajo waa wiil yara in la dila ma mudnee maad iska daysid xoogaha iyaguna caatifadan oo dhinacan rasuulka iyo familkiisi way qaaday xajaajna way ka baqayaan xajaaj wuxuu yidhi maya khasab waxaa ah in la dilo wiilkan xitaa hadduu samada ka dhawaaqo ruux dhawaaqaya u yidhaahdo yaan la dilin oo wuxuu ula jeedaa malag xataa hadduu ilaahay soo diray yidhahdo wiilka yaan la dilin wiilka in la dilo waa qasab wiilkii yaraa wuxuu yidhi nebi ma tihide yaa samada kaaga dhawaaqayo xajaaj wuxuu yidhi oo inaan ku dilo hadda yaa iga kaa hortaagan ayuu xajaaj wiilka weyddiiyey wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaana kala taagan inaad i disho ee ruuxa qalbiga iyo ruuxa kala dhexgala waa ilaahay buu ula jeedaa allaha kala dhexgala ruuxa iyo qalbigiisa ayaa aniga iyo adigana inaad i disho iga kaa celinayo xajaaj wuxuu yidhi ilaahayga aad sheegayso isaga ayaa igu kaalmaynaya aniga inaan ku dilo adiga wiilkii yaraa wuxuu yidhi maya ilaahay kuguma kaalmaynayee shayddaankaaga ayaa kugu kaalmaynaya inaan adiga i disho ee ilaahay baan ka magan galay adiga iyo shayddaankaagaba xajaaj wuxuu yidhi wiiliyow waxaan ku arkaa jawaabtaadu inay fara badan taho aad iigu jawaabayso ee wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa ruuxa wuxuu alle ugu dhowaan kara ma ii sheegi kartaa wiilkii yaraa wuxuu yidhi haa ilaahay waxaa loogu dhowaadaa soonka iyo salaadda sakada iyo xajka ayaa ilaahay loogu dhowaadaa xajaaj wuxuu yidhi aniga ilaahay waxaan ugu dhowaanayaa dhiiggaaga sababtoo ah waxaad i tidhi waxaan ahay ilmihii xasan iyo xuseen faracoodii baan ahay soo ima aad dhihin haa inaan aniga ku dilo baan ilaahay ugu dhowaanayaa oo xasan iyo xuseen iyo faracaasi ayuu aad u nabcaa xajaaj bin yuusuf athaqafi
wiilkii yaraa wuxuu yidhi isagoon cabsi iyo argagax midna ku jirin aniga waxaan ahay buu yidhi awlaaddii rasuulka ayaan ahay sala allahu calayh wasalama ajashayda iyo geeridayda hadday gacantaada ku jirto shayddaankaagii ayaa yimid buu yidhi si uu aakhiradaada u fasahaadiyo ayuuna kugu yimid oo inuu aakhiro kaa fasahaadiyo ayuu doonayaa wiilkii yaraa baa ku jawaabay oo xajaaj baa wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi ma waxaad leedahay awlaaddii rasuulka ayaan ahay oo geerina waad necabta waad ka baqaysaa miya wiilkii wuxuu yidhi mayo ilaahay sooma dhihin walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaagha isku gelinina ilaahay sooma dhihin xajaaj wuxuu yidhi yaa ku dhala wiil yahow ii sheeg wuxuu u raadinayaa hadallo inuu wiilka wax un ku daayo markaasu wuxuu yidhi yaa ku dhala wiil yahow wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay hooyo iyo aabbo ayaa i dhalay hooyo iyo aabbo unbaa i dhalay xajaaj wuxuu ku yidhi xaggeed ka timid wiilkii yaraa wuxuu yidhi dhulkan ballaaran oo ilaahay abuuray meel ka mid ah ayaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa wiil yahow carab yaa u karaamo badan carabta reerka ugu deeqsinimo badan ee wax bixinta badan yaa weeye wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu tayi qabiil la yidhaahda ayaa carab ugu deeqsinimo badan xajaaj wuxuu yidhi maxay deeqsinnimadaa banuu tayi iyo karaamadaa ku gaadheen wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaa ka dhashay xaatimul asam ninka la yidhaahdo ayaa ka dhashay xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u sharaf badan haddaba qabaa'ilkii buu soo tirinayaa carab yaa u sharaf badan wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu mudar baa u sharaf badan qabiilka banuu mudar la yidhaahdo ayaa u sharaf badan xajaaj wuxuu yidhi maxay sharafta ku gaadheen wiilkii yaraa wuxuu yidhi nebi moxamed sala allahu calayh wasalama ayaa ka dhashay qabiilkaa isaga ah xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u geesinimo badan qabiilka carab ugu geesinimo badan ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu haashim baa u geesinimo badan waa jilibkii nebiga uu ka dhashay sababtoo wuxuu yidhi banuu haashim geesinimo waxay ku gaadheen cali bin abi aalib baa ka dhashay xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u nijaasaysan qabiil ahaan qabiilka ugu nijaasaysan uguna bakhaylsan uguna khayr daran waa qabiilkee wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu haqiif qabiilka yidhaha reer bani haqiif ayaa ugu nijaasaysan oo ugu bakhaylsan ugu khayr daran sababtoo ah adigan xajaaj ayaa ka dhashay buu yidhi xadiidka nebigana wuxuu noo tilmaamay reer banuu haqiif waxaa ka soo bixi doona namruud baa ka soo bixi doona iyo beenaalayaal beenaaluhuna musaylime ayuu ahaa oo nebinimo sheegtay nabruudkuna waa adiga uu yidhi oo dadka iska baabi'inaya xaqooda iyo dhiiggooda iska baabi'inayo xajaaj intuu caroodo aad u xanaaqay buu wuxuu yidhi madaxa ka gooya dadkii meesha fadhiya waxay yidhaahdeen wiilku wuu yaryahee iska daa xajaaj intuu caradii xoogaa isu yara dejiyey ayuu wuxuu ku yidhi geelaagii geesaha lahaa xaggeed kaga soo tagtay geelii geesaha lahaa ee aad raacaysa wiilyow xaggeed kaga soo tagtay wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaan kaga soo tagay buu yidhi geelii geesaha lahaa waxaan kaga soo tegey isagoo daaqaya geedka la yidhahdo suwaan caleemihiisa waa geedan caleemo dhallo qodxo keliya leh ayuu u tilmaamaya wuxuu leeyahay geedka suwaan caleemihiisa isagoo daaqaya ayaan ka soo tegey xajaaj intuu qayliyeybu wuxuu yidhi waryaa waxyahu caqliga aan lahayn maskaxdiisuna ay maqan tahay geedka suwaan miyaa caleemo leh geedka suwaan miyaa caleemo leh wiilkii yaraa wuxuu yidhi xaggeed ku aragtay geel geesa le adna waa adiga i weyddiinaya geelaayo geesaha lahaa xaggeed kaga soo tagtay geel geesa le xaggeed ku aragtay markaad geedka caleenta aan layn caleen u diidaysid xajaaj wuxuu yidhi wiil yahow qur-aanka ma xafiday wiil yahow qur-aanka ma xafiday wiilkii yaraa wuxuu yidhi qur-aanka miyaa iga cararaya markaan xafidayo ma isagaa iga baxsanayo markaan xafidayo xajaaj wuxuu yidhi qur-aanka ma kulmisay oo ma uruurisay wiilkii yaraa wuxuu yidhi markaan uruurinayo qur-aanka miyaa kala daadsanaa markaan uruurinayo xajaaj wuxuu yidhi ima fahmin su'aashayda miyaa wiilkii wuxuu ku yidhi waxaad i tidhaahdaa buu yidhi aad i weyddiisaa qur-aanka ma akhrisay mana fahantay